Gobolka Bariga Dhexe ayaa saacadihii hore ee maanta martigeliyay mid ka mid ah weeraradii ugu xumaa kadib markii Mareykanka uu ku weeraray gudaha dalka Yemen diyaaradihiisa bambooyinka riddada dheer oo aan diyaarad kale qaadi karin ee culeyska istiraatiijiga ah ee B-2A, iyadoo xogayaha Mareykanka Lloyd Austin uu shaaciyay in weerarkani ee Yemen ay ka geysteen 5 goobood inay u adeegsadeen diyaaradani, sababtoo ah wuxuu ku sheegay inay goobaha yihiin inay Xuutiyiinta dhigtaan gantaalada ee ku yaala dhulka hoostiisa kana soo qaadaan weerarada maraakiibta. Kani waa weerarkii ugu weynaa ee ay la kulmeen Xuutiyiinta dalka Yemen, waxaana la beegsaday bartilmaameedyo ku yaala koonfurta Sanca, aagga Kahlan iyo Al Cayn ee bariga magaalada Sanca. Weerarkan wuxuu leeyahay ujeedooyin gaar ah. Diyaaraddan B-2A waa mid ka mid ah diyaaradaha ugu xun ee bini'aadamku haysto. Waxay awoodaan 10 tan oo bambooyin ah in ay qaadaan. Goobta ay ku dhuftaanna waxay dhulka hoostiisa u galaan 10 mitir ah, waxaana lagu burburiyaa xarumaha iyo saldhigyada dhulka hoostiisa ku yaala. Waana sababta bilowga weerarkani ay Iiraan ku qaaday Israa'iil aan ugu maqalnay dhinaca Israa'iil inay doorbidayaan in uu kala qayb qaato weerarka jawaabta ah ee ay ku qaadayso Iiraan, sababtoo ah diyaaradaha Israa'iil ma awoodaan inay gaaraan goobaha ay beegsan karto diyaaraddan B-2A si loo gaaro xarumaha nukliyeerka Iiraan. Diyaaraddan ayaa ah midka kaliya ee fulin karta weeraradaasi. Hadda weerarka Yemen ee ka geysatay diyaaraddani waxay adeegsatay hanaanka gantaalada raxanka ah ee halka bartilmaameed ku dhici kara oo loogu yeero nidaamka G-DAM. Tanina waxay ku dhacdaa marka la doonayo inaan dib loo adeegsan ama laga soo kicin goobaha bambooyinka isla socda oo midiiba 10 tan oo 10 mitir ah dhulka hoostiisa ku qarxi karta. Waxaa laga yaabaa bambada ugu yar inay leedahay culeys 900 kg ah. Ilaa hadda ma soo bandhigin Xuutiyiinta inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay weerarkani, balse waxay xaqiijiyeen inay la kulmeen weerar kulul. Diyaaradda B-2A waxaa laga soo duuliyay saldhigga ciidanka cirka Mareykanka ee Whiteman ee ku yaala gobolka Missouri ee dalka Mareykanka, taasi oo xaqiijinaysa in diyaaraddani aysan joogin meel aan ahayn gudaha Mareykanka, sababtoo ah waa mid ka mid ah qalabka Mareykanka oo laga hortagaya in laga helo xogo sirdoon. Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa sidoo kale yidhi isticmaalka bambooyinka riddada dheer ee B-2 waxay muujinaysaa awoodda Mareykanka uu u leeyahay weeraro bartilmaameedyo noocaani oo kale ah wakhti kasta iyo meel kasta. Mareykanku kama labalabayn doono inuu qaado tillaabo uu ku ilaalinayo muwaadiniintiisa Mareykanka iyo danaha iyo ka hortagga weerarada ka dhanka ah rayidka iyo xulafadiisa gobolka. Ugu dambeyntii, weerarkan iyo hadalka Lloyd Austin wuxuu u muuqdaa in lagu gudbinayo fariin ku socota Iiraan oo la xiriirta isku daygeeda ay ku doonayso inay uga jawaabto weerarka ay diyaarinayso Israa'iil.